السلام عليكم. weli waxaynu ku jirnaa sidii jumladaha loo sameeyo anigu isticmaalaynaa eryadan subject pronoun I aniga, aniga, we anaga, you adiga, they ayaga, she ayada, he asaga, it's ayada. Kan ugu soo horeeyo I oo aniga ah jumlad inaan ku sameyn rabaa howna xarafkaas ama ereygaas sidee waa how sidee waa how am I now how sidee am I ahay now hadda how am I sidee baan ahay now hadda we waa anaga we anaga how are we now sidee baan ahay anaga hadda how are we now sidee baan ahay anaga you adigi how are you sidee baa tahay adiga now hadda how are you now sidee baa tahay hadda they ayaga how are they sidee waa ayaga how are they sidee waa ayaga now hadda how are they now sidee waa ayaga hadda how is she sidee waa ayada now hadda how is she sidee waa ayada now hadda how is he sidee waa asiga now hadda how is he now sidee waa asiga hadda how is it now sidee waa ayada hadda how is it now sidee waa ayada hadda now hadda loo isticmaalaa now waa hadda ereyga now waa hadda howna waa sidee ingiriiska ereyo badan markii laisku heraara wuxuu noqon karaa jumlado hadda waxaan isku darnay ereyga how kuwaa ku darnay xiriiriyaha oo subject baron ah I we you they she he it's todobadaas ayaana hadda qaadanay isla todobadan waxaa bedelaynaa jumlada kale anigoo ka bedelayna keliya how unu bedelaynaa who am I aniga kuma ahay who am I aniga kuma ahay anigiyaa ahayd ay noqonaysaa waxaana isaara calam su-aal kulligood waa su-aal jawaab baahan who are we anaga kumaan nahay who are we anaga kumaan nahay who are you adiga kumaa tahay who are you adiga kumaa tahay who are they ayaga miyay yihiin ayagoo kuma who are they ayaga waa kuma ayagaya yihiin who is she ayada waa tuma who is she ayada waa tuma ayada yay tahay who is he asiga waa kuma kumuu yahay who is he asiga waa kuma asiga yuu yahay camal taagantahay who is its ayadiyaa tahay who is its ayadiyaa tahay ayada kuma tahay waa it waxaa loo adeegsadaa xayawaanada iyo haa nooleen ingiriiska badankiisa waa ereyo ereyadaas laysku harharayaa waxaay noqdaan jumlado iyo hadallo sidoo kale wuxuu leeyahy sharciyo sharciyadaas qofka inuu fahamsan yahay waa sharciyada markaa barato waa kala saari kartaa laakiin haddii aadan baran sharciyada waxaa dhib ugu noqonaya inaad samayso hadal ingiriis ah ama la jumladaa dhisto qof walba barna ingiriiska waa inuu sharciyada iska bartaa sharciyada ingiriiska iyo erey badan halahaas haddii aad barato waa baranaysaa ingiriiskaas si fudud haddii aad doonaysay inaad si deg deg ah ku barato ama si dhaqso leh ingiriiska waxaa waajibkuga inaad barato sharciyada luqadda ingiriiska iyo ereyo badan labadaas
yaa ingiriisku bara kartaa ugu taas